هل مرة أنت قبت مارتي أعيجي أتورها بدأ أكل قاضي كبعد كادي كينا كادي ما فهمتني مركها الوصو ياو من دي كان لبحي كان من دي مركو كتاغي halkaas uu ka gelshay kana bistooladi la baxay hal xabad oo gacanta ugu dhuftay maadaama uu ka xoog badnaa intii laalay uu bistooladina gacanta ka la wareegay dawladna uu saddex xabadood ku dhuftay sida ku cadeed kiiska bistooladii iyo mindidii la isku dagaalay asagaana wacay booliiska Soomaaliyeed gacan ku dhiiglaha oo 199 wacay uu yiri atooraha badda la dilayna soo gaara sabab la yaab leh ayuu u dilay saaxiibkiisii atooraha badda waxaa soo kala dhex galay khilaaf lacageed taasoo lagu sheegay $60,000 inay dhexdooda taalay waa atooraha badda iyo saaxiibkiisa Leelefow isaga oo shakhsigani marka uu dilay atooraha badda ku nabay rag kaleete oo yiri waxa dilay argagixiso balse booliiska ayaa baaritaan sameeyay waxa ayna ogaadeen inuu shakhsigani asagu gacantiisa uu ku dilay atooraha badda allaha u naxariistay hadaba saaxiibayaal waxaan idin wadaagi doonaa muuqaalo sidoo kaleete shakhsiga dilay atooraha badda muuqaalkiisa maadaama booliiska ay soo bandhigay sawirkiisa balse magaciisa ay sheegeen isagoo loo yaqaan Shucayb Leelefow hadaba intaan idin wadaagin fadlan saaxiibayaal muuqaalka like saara si dad badan ay ugu soo duceeyaan atooraha badda sidoo kaleete si share gareeya haday tahay booqashada ugu horeysay channelka soo booqatana fadlan subscribe saaro gomboleelkana furasiga kugu soo dhacaan muuqaalada iyo warbixinada aan halka soo galiyo isku soo noqod wanaagsan saaxiibayaal sida booliiska Soomaaliyeed ay cadeeyeen waxa dilka atooraha badda ka dambeeyay Shucayb Leelefow oo ahaa saaxiibka kaliya uu lahaa atooraha badda iyada oo booliisku ay sheegeen in saaxiibkiisii atooraha badda uu u dilay $60,000 ee gacanta ku hayeen taasoo ahayd dadka miskiinta ah lacagta loogu talagalay oo ay soo dhiibteen dadka muxsiniinta ah si dadkaasi loogu afuriyo looguna ciidsiiyo balse booliiska waxa ay sheegeen in ninkani Leelefow lagu magacaabo ee dilay atooraha badda uu damcay inuu lacagtaasi si xoog ah ku qaato balse waxa ka hor istaagay atooraha badda markay isku qabsadeen waxa dhacday toorey ayaa meesha soo kala dhex gashay oo atooraha badda waxa lagu dhuftay toorey balse waxa uu la soo baxay bistoolad uu watay waxa uu dabcay inuu ku dhufto ninka doonayay inuu lacagta ka dhaco markii uu ku dhufan tagana waxa awood u sheegtay maadaama uu ahaa nin ka xoog badan sida aad muuqaalkiisa ka arkaysiinba inta qabtay ayuu gacanta ka maroojiyay oo bistooladii ka qaatay ayuu saddex xabadood madax kaga dhuftay daba intaan idin la wadaagin shakhsigan sida arxan darrada u dilay atooraha badda waxaad la daawatiin afayeenka booliiska Soomaaliyeed oo ka waramaya qaabka uu falka u dhacay waxaan rabaa bulshada Soomaaliyeed guud ahaan inaan ooga warbixiyo kiiskii dilka ahaa ee shalay bacdul afur ka dhacay xarunta tan ee aynu joogno kiiskaas oo badi ay bulshada Soomaaliyeed laga marin habaabiyay looguna tilmaamay goob aysan waxba jirin balse baaris dheer iyo dabagal dheer oo ay booliiska Soomaaliyeed sameeyeen la helay xaqiiqda kiiskan wuxuu ka dhacay gudaha gurigaani waxaana isqabsaday labada shakhsi ee kala ah ay bulshada Soomaaliyeed u kala taqaano atooraha badda iyo Leelefow oo ah ninka atooraha badda la jila filimaanta labadoodii oo dad muxsiniina ay u soo diraan lacagyow ay ku caawiyaan bulshada Soomaaliyeed balse lacagtaasi oo cadadkeedii batay khilaaf ka dhashay awgeed ay ku sababtay labadoodii inay isku gacan qaadaan dabadeedna uu nin ku dhinto kiiskan sida ay bulshada Soomaaliyeed loogu marhabaabiyo oo inay shabaab ka qayb qaateen ma jiraan gacan ku dhiiglahana wuxuu qirtay inuu dilka asaga geystay oo ay khilaaf dhaxmaray dagaal dhaxmaray min dil isku dhuftay kadib ay bistoolada soo dhax gashay dilkana uu fuliyay gacan ku dhiiglaha hadda uu booliiska gacanta ku hayo gurigan aan dhex joogno waxa wax loogu qeyb jiray bulshada Soomaaliyeed oo maati ah sida ku cad warbixinta uu qoray gacan ku dhiiglahana wuxuu sheegay lacag 60 iyo ka badan 60,000 iyo ka badan inay dhexdooda taalay uu dabadeed isku khilaafeen uu marxuumku ku yiri shaqadan anaa bilaabay anaa watay anaa wixii sameeyay jiray ee iga tag adiga yaadaan ka tagay wixii aan kugu leeyahay xaqaysi iyo kuma siina kumbigu milid shaqada anaa qabsanay wixii hore oo inta Allah ku anfaco dabadeedna ninkan uu gacan qaad bilaabay isqa qabsigii mindidii iyo waxay isku qabsadeen mindi kan la baxay kan mindidii markuu ka taagay halkaas uu ka gelshay kana bistooladii la baxay hal xabad uu gacanta ugu dhuftay maadaama uu ka xoog badnaa intii laalay uu bistooladina gacanta ka la wareegay dawladna uu saddex xabadood ku dhuftay sida ku cadeed kiiska bistooladii iyo mindidii la isku dagaalay asagaana wacay booliiska Soomaaliyeed gacan ku dhiiglaha oo 199 wacay uu yiri atooraha badda la dilayna soo gaara markii booliisku ay yimaadeen intaysa imaanin ka horna wuxuu dabaqada sare guriga saaray
saqafka guriga ku tuuray bistooladii iyo mindidii ay isku dhufteen markuu booliiska yimidna wuxuu u sheegay in niman shabaab soo weerareen dileen asagana uu ka badbaaday arrinkaas oo aan sax ahayn oo marin habaabin bulshada Soomaaliyeed uu ku sameeyay ugu dambeyntiina uu qirtay inuu dilka asaga geystay saaxiibkiisna gacantiisa ku baxay wax dhaxyaalin ay ahayd maal adduunyo oo dhan 60,000 iyo wax jajaba la jiro marka bulshada Soomaaliyeed waxaan xaqiijinaynaa gacan ku dhiiglin in gacanta lagu hayo maxkamadda loo horgeyn doono marxuumkana inuu dilay asaga qirtay kiiskan uu cad yahay ay sajirin wax shabaab inta soo weeraray gurigan soo galay uu dilay marxuumka afkiisna uu ku qirtay gacan ka dhiglaa inuu asaga dilay shalay bacdul afurna ay dhacday waa mahadsantiin kiiskan sidaas uu dhacay Cabdicasiis okay TV Universal Muqdisho waxay la tahay in muuqaalka soo daawatay waxa in yar idin xasuusinaya muuqaal live ah markii iskugu horeysay atooraha badda iyo sidoo kale shakhsiga hadda dilay ee leeleefow iyaga oo bartooda YouTube-ka live uga jiray la daaw muuqaalkaas yani la baashaal lahay alaabta mutun sheera alaab kasta waxa waaye maanta waa online ka tahay marka waxa lagu soo yaaco idinkana waa imaan kartaan oo u jeedin ya waa u jeedin ninka waa dhisan yahay ya hal mar inta qabto maartay hal mar inta qabto maartay hal mar inta qabto maartay ciiji atooraha badda akul u qaada ka bacdi kaadiya ka kiina kaadi ma fahanteen marka lagu soo yaaco ay hadda keemo asxaabta qalidi soo dhawaada saa u dhantiina la soo dhawaado waa la isdhisay alaabta doodka ma jididooday waa la isdhisay alaabtan ma jidorto ya soo dhawaada asxaabta qalidi maanta waxa waa ajina caadi ahayna sameynaa ani saaxiibkay leeleefow adinkana soo dhawaada waxa waaye waxaan ku jeclaa inta badan dhiirigelinta no I'm not a gay sister I'm not a gay waraa qofa kula hadlayo are you a gay Luisa so he's not a gay also he's just he like Indian fashion you know yeah hi Chaitani wa ku salame I'm saying hi Chaitani this guy his name is Atooraha Badda and he's from Somalia and he's an actor he always make entertainment for people you know so he's not a gay don't abuse him okay haye maxaa shakidan baqan I'm talking with someone who say naga jooji boota maahan ninkaan u jeedin ninka gabarka bursanaa waa ka balaarka u jeedin ma jeedin oo leeleefo la caadi ma ninkaan gabarka you can speak you can talk I'm listening you adi fiir af Soomaali ku hadlaya adi fiir waaba halaabnawe xataa saa hadlus no there is someone who saying is he gay or something you know khanis ma amal idoosa ana ma itiri so okay ana ma itiri yes you see you make them angry now you make them angry hatri Chutney are you police police mata kudosa police mata kudosa yes he is a policeman he's from Somalia he was born in Mogadishu you know he's a police Mogadishu sana loo ciyaara san isha farqiya jilina oo sheeg he got a more style you know don't worry about he's not a gay no wallahi ma ku duqeyno wallahi ana asxaabta qalidi horta kala ingiriis lagu mashquulna asxaabta qalidi waa idin salaanay soo dhawaada ma sha Allah idinka walaalahay soo dhawaada ila dhafno nafta soto jeneska leeleefo dhafno markii soo dhawaada asxaabta qalidi waxay leenahay ani saaxiibkay leeleefo waa kana filan cusub ay soo diyaarinayna oo caadi ahaan adinkan waxa waa intaan comment-ida iyo share-ka iyo waa la baqishan waxa waa xaasidnimada nimayo xaasidnimada ma isku wadinay ma is xaasidnimada Chutney hi a'uudu billahi min waa walate ninkaan hala yaabana waliis naad gaale waliis lama hadlin marka wuxuu u salaamoy sidaas waaye marka waxaad leenahay subscribe-ka comment-ida dhiirigelinta mar walba nala socda marka waxa maanta aadshina caadi ah inay idin sameeyrabnaa maadaama sanad cusub oo maarata aan galnay waxa waaye waxyaabo badan macnaha sanadkan noo qabsoomay insha Allah waxaan rajeynaynaa sanadka dambe oo hadeertaan socdo inuu wax wanaagsan noo qabsoomo
aweys walaalkay aweys maasha Allah ku salaamnay waa heli tiibka ku doontaa salaamnay filinka dulmi een waa ogtiin hore waxay la tahay in muuqaalkaasi sidoo kale barnaamijkan soo daawatay haddaba saaxiibayaal muuqaalka sii share garay sidoo kale like saara si dad badan uu gaaro dad badan ay ugu soo duceeyaan tooraha badda Allah u naxariistay haday tahay booqashadeed ugu horeysay channelkeena soo booqatana fadlan subscribe saaro gombalelkana furo si ay kugu soo dhacaan muuqaalada iyo warbixinada aan halkan soo gelino mahadsanid